waxaa loogu yeeri jiray magaalo diimeed taariikh aan duugoobin waxayna dadka qaar u arkaan inay ka mid tahay magaalooyinka lagu yaqaan diinta islaamka boqolaalkeeda masaajid goobaheeda cibaado dariiqyada yaryar iyo suuqyadeeda muuqda waxay magaalada Harar leedahay dhaqan qani ah oo soo jiray kumannaan sannadood qarniyo ayay saldhig u ahayd culummada islaamka waxayna sidoo kale ahayd xarun ganacsi oo muhiim ahayd iskuna xiri jirtay geeska Afrika bariga dhexe Hindiya iyo Shiinaha waxyaabaha ugu soo jiidashada weyn halkan waa madxafkan uu aasaasay gabyaagii Faransiiska ee caanka ahaa Arthur Rimbaud iyadoo dadku daawadaan muuqaalada iyo sawirrada uu soo ururiyay gabyaagan oo ku saabsan magaalada ma dareensan in meel tan la mid ah ee dunyada ku taal waxay leedahay dareen xoogan taasi oo aadan dhabtii qarniga 21aad aadan wax badan ka helaynin waxay ahaa jirtay magaalo dawlad ah oo markii dambana dalka la midowday waxaase ay leedahay hiddaheeda iyo dhaqankeeda gaarka ah waxaa mar walba laiskugu darayay in gobolkan uu ku bilbo dalka intiisa kale marka uu gobolku dhaco waxaad arkaysaa dhaqan kale oo hore oo ah waraaba quudin habeen kasta Benjamin Ashanafi wuxuu farxad geliyaa tobaneeyo dalxiisayaal ah iyo dadka deegaanka kuwaas oo u yimaada inay arkaan quudinta xayawaankan Benjamin wuxuu leeyahay waan jeclahay waraabaha qayb weyn ayuu ka qaataa dhamaynta qashinka mana weeraro dadka deegaanka taariikhda weyn ee magaalada ka soo kow waxay dadka deegaanka aaminsan yihiin in Harar ay wax badan leedahay oo ah dhaqan iyo suugaan iyo sidoo kale in dadku ogol yihiin diimaha kala duwan